kulan wacan oo wanaagsan marka la idin lahaantiinba daawadayaal kulan looga hadlayay ammaanka dalka xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee wadanka oo ay naga xigto wax ka yar 3 bilood ayay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ee loo soo gaabiyay IEBC waxa ay la qaateen qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka oo ugu horeeyay taliyaha ciidamada booliska ee dalka ee Joseph Bene waxaana kulankaasi isagu ahaa mid la isula gogol xaaraya sidii markaa iyaduna guud ahaanba looga wada shaqeyn lahaa ammaanka dalka Kenya. أحمد إسحاق عبد اللقاي أي ففاهين توركن إنه هيا. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalkani Kenya IEBC ayaa ku dhawaaqay in 28 May ay bilaaban doonto ololaha ay sameynayaan murashaxiinta kala duwan ee u taagan kuraasta siyaasadeed ee dalka. gudoomiyaha guddiga IEBC Mudane Wafula ayaa sheegay in guddigiisu uu si wanaagsan ugu diyaar garoobay in dalka ay sanadkan ka qabsoonto doorasho guud ee la filayo inay dhacdo 8 bisha 8aad. guddigan ayaa intaa ku daray in IEBC ay isu diyaarisay qorshaha doorashada xaq ee xalaal ah wuxuuna aad u soo dhaweeyay qaabkii ay u qabsoontay doorashooyinkii lagu kala reebayay murashaxiinta kala duwan ee u taagnaa axsaabta siyaasadeed ee dalka. dhinaca kale dawladda ayaa digniin u dirtay dadka Kenyaanka waxaana loo sheegay in aysan isku howlin qalalaase iyo fal amniga lid ku ah. Our determination to ensure that the entire electoral cycle that is before, during and after the elections is safe and secure. For us, our role is to provide that enabling atmosphere to enable the people of this country to exercise their democratic right. gudoomiyaha guddiga qaran ee isdhaxgalka iyo wadajirka dalkani Kenya NCIC Francis Ole Kabaro ayaa isaguna xariga ka jaray mashruuc ku saabsan qorsheynta amniga xilliga doorashada ay dhici doonto 8 bisha 8aad wuxuuna sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin dadka wada qalalaasaha iyo rabshadaha ka dhanka xilliga doorashada ay dalka ka dhacayso. Ndugu viongozi wanasiasa, Kenya hii ni yetu na nyinyi. Wape wa Kenya nafasi ya kuishi kuwachagua. Hamna faida kuwa na maiti kwa sababu maiti haitawachagua. Watu walio hai watawachagua. Mtupe nafasi tuwe hai ili tuwachague. Na mtupe nafasi tuwe hai baada ya kuwachagua ili mtutumikie. Meseji yangu hiyo kwa wanasiasa na viongozi. Wa Kenya ndugu zangu, wacheni kupigia vigelegele wachochezi. Na wale ambao wanataka kuleta furugu wakemeeni kwa sababu hawastahili vigelegele.